أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، صلاة دائمين متلازمان. أما بعد، فيا أحباب رسول الله، أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. أوصيكم نفسي بتقوى الله العلي العظيم وأنفسكم ولزوم طاعته. waxaynu isu dardaarmaynaa in sha allahu tacaala inta aanan qabyo tirin oo aanan dhammaystirin mowduucii jimcadii hore ahaa cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala. ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa goob kasta oo la isugu yimaado waxaa habboon in la isfaro ayaa habboon. ilaahayna subxaanahu wa tacaala in badan oo ka mid ah aayadihiisa qur'aanka ahi wuxuu nagu farayaa cabsidiisa, wuxuuna noogu ballan qaadayaa wanaagyo fara badan oo adduun iyo aakhiraba isugu jira. adduunya iyo aakhiraba wanaagyo fara badan oo isugu jira ayaa la isu faray ayuu ilaahay qur'aankiisa noo faraya. nabigeennuna sala allahu calayhi wasalam isaguna sidoo kale in badan wuxuuna farayaa inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsanno meel kasta oo aan joogno. ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa waxaa lagu faa'iidaa adduunya iyo aakhiro iswata, labadaba waa lagu faa'iidaa. liibaan adduunna way leedahay, liibaan aakhirana way leedahay. liibaanta adduun qayb ka mid ah jimcihii hore ayaanu soo sheegnay oo ay ka mid ahayd in qofka ciriiriga uu ku jiro ilaahay subxaanahu wa tacaala uu adduunyada ka qaadayo, risiq uu malaysanayn uu siinayo, ilaahayna uu ku filan yahoo kaafigiisa uu yahay qofkii tala saarta. waxaan kaloo sheegnay jimcadii hore cabsida ilaah in lagu helo dembi dhaaf, in dembigaagii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaa tirtiro. haddana in sha allahu tacaala fii suurati طalaaq naftirkeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إلهي سبحانه وتعالى qofkii ka cabsada arrimihiisoo dhan ilaahay wuu u fududaynaya. wax kastoo damacday inaad samayso, hadday ganacsi noqoto, hadday noqoto guur, haddii ay noqoto arrimo kaleba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu kuu taysiirinaya, wuu kuu fududaynaya. waxa ay nooga xidhan yihiin keliya inaan arsaaq helno, in ciriiriga ilaahay naga bixiyo, in dembigeenni dunida intaan joogno lagu dhaafo, iyo in ilaahay subxaanahu wa tacaala arrimaheenna noogu fududeeya. intuba ilaahay shardiga uu ku xiray waxa weeye waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan, ama yajcal lahu min amrihi yusra, ama yukafir canhu sayi'aatihi wayucdim lahu ajra. say doontaba ha ahaatee cabsida rabbi subxaanahu wa tacaala ayaa wax kasta lagu hela. waxaynu isu dardaarmaynaa cabsida rabbi subxaanahu wa tacaala. cabsida rabbi subxaanahu wa tacaala waxaa lagu gaaraa marka hore inaad barato ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaad u ateeci lahayd, sidaad uga cabsan lahayd inaad barato. laba qiso baan in sha allahu tacaala ku soo qaadanayaa cabsida rabbi subxaanahu wa tacaala, kadibna mowduuceennii qabyada noo ahaa ayaan u guda geli doonaa. labada qiso waxaa la tilmaamaa ninaan aqoon lahayn oon diinka waxba ka baranin ayaa wuxuu damcay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala caabudo. wuxuu jeclaystay inuu habeenkii oo dhan soo jeedo. nafya shaydaan baa kula xiriira
nafya shaydaankuna kuuma ogola inaad cibaadaysato wuxuu isku dayay ninkaasi inuu cibaadaysto habeenkii oo dhan taagnaado aqoon ma leh laakiin waxaa ku jirta damiirkiisu wuxuu siinayaa in uu ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa uu khaalis yeelo aqoon darrida waxay ka mid tahay waxyaabaha camalkaaga oo dhan burburiya si kastood u soo jeedo haddii aadan aqoon u lahayn waxa aad samaynayso ilaahay subxaanahu wa tacaala camalkaagii kaa aqbali maayo saa waxa aad samaynaysaba ma taqaanid waxa ay yihiin ninkaasi habeenkii oo dhan buu salaado tukan jiray habeenkii oo dhan buu sujuudsanaan jiray laakiin cilladda haysatay waxay ahayd markii uu damco uu caajizo oo uu damco inuu cajziga iska kiciyaba wuxuu ku fikiray maxaad isaga kicin kartaa waxa u soo baxday xayawaanaadka xayawaan ka mid ah oo dhintay soo qaad agtaada dhig ama maradaada dhinac kaga gunud markii aad xoogaa caajistaba fur waxaad istiraahdaa allihii xayawaankan dilay adiguna ma ku daynaya jiir ama doolli sida loo yaqaana ayuu soo qaatay maradiisii go-i uu huwanaa ayuu dhinac kaga xidhay salaaddii buuna iska galay qofka aqoontiisu waxay tilmaamaysaa markuu qofkani shay nijaaso ah maradiisu saaran tahay inaysan salaaddiisa ansaxaynin waa markaad aqoon u leedahay laakiin haddaadan aqoon u lahayn waxba kula ma aha habeenkii oo dhan buu salaadayaa salaaddiisuna waxaa la xiriirta maro nijaaso ah ayuu qabaa maro nijaaso korka saaran tahay ayuu huwan yahay markuu daalo oo salaadihii sunnooyinkii ku daaloba intuu fadhiisto wuxuu furayaa xayawaankii ama jiirkii dhinsanaa ee maradiisa ku guntanaa intuu eeguu leeyahay allaha dilay adigana hadduu nafta kaa qaadi karaa markaasuu salaad kale u sii istaagaya laakiin cilladda jirta waxa weeye salaadaha uu tukaday hadday kun yihiin iyo hadday kumanaan yihiin hal xabo oo u ansaxday kama jira saa aqoon uma lehe ninkaasi caqabadda haysata dadaal xumo maahee waa aqoon darro marka cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala marka aad samaynayso waxaa lagaa doonayaa inaad marka hore aqoonteeda leedahay waa mid haddii aad aqoon leedahay haddaad doqon taho qalbigaagu xataa caqligaagu uusan dhammayn wax badan baad ku badbaadaysaa aqoontaada hadda ka hor baan waxaan risaale ka akhriyey nin sheekh ah ayaa wuxuu sameeyey xertii uu soo saaray markii ay qalin jabiyeen ayaa wuxuu ku yidhi xertii qof kasta waxaa laga doonayaa camalkii uu aabbihii qaban jiray inuu qabto camal la'aantana ka cararo maadaama diinteennu ay nafarayso kasbi iyo risqi xalaala in la raadiyo maacuud ha ahaaninoo meel ha fadhinina waxaad samaysaa shaqayso qof kastana weliba wuxuu ku booriyey camalkii aabbihii uu hayn jiray waxaa ka mid ahaa ardayda waxbaratay nin doqona ardaydii waa la soo fasaxay nin kastana waalidkii buu soo aaday waalidkii buu waraystay aabba muxuu qaban jiray haddii uu dhintay hadduu noolaana dee camalkii aabba qabanaya ayuu arkayo isagana dhinac ayuu ka galay waxaa ka mid ahaa ardaydaasi nin doqon oo aabbihii dhintay hooyadii buu u yimid oo wuxuu yidhi hooya aabba camalkii uu qaban jiray muxuu ahaa markaase waxay ku tiri hooya maad iska daysid maya sheekheenna noo soo diray waxaan rabaa inaan camalkii qabtay ii sheeg markay kari weydayba waxay ku tiri aabbaha tuug buu ahaa waa caqligiisu ma dhammayn ninka wax soo bartay laakiin cilmigiisaa badbaadin doona wax badanna gaarsiin doona markaasuu wuxuu yidhi ma saas ahaa wuxuu bilaabay inuu barto tabihii iyo xirfaddii uu aabbihii ku shaqaysan jiray ee tuugnimada ahayd tuugnimadii ayuu soo bartay waxaa u soo baxday inuu cid taajir ahayd oo aan sidaa uga sii fogeyn inuu soo dhaco oo soo xado ayaa u soo baxday ciddii koowaad buu damcay inuu ka bilaabo caqligiisii ma kaamil ahayn laakiin cilmigiisaa celiyo wuxuu yidhi war qofkan deriskaagii weeye xaq buu kugu leeyahay deriskaagana xaqooda inaad dhowrto ayay ballanta culumtu ahayd sidii buu uga tegey wuxuu u tegey sidii oo kale
cidihii ku xigay soo marba cid ugu tagayay oo darisku ka mid yahay u lahaa buu ka fogaaday cidihii oo dhan markii dambe uu cid hanti leh ku dhex dhacay hantidii markuu ku dhex dhacay ciddii oo habeenimo hurdo ayuu u galay wuxuuna bilaabay inuu hantidoodii dhaco khaanadii buu furay khaanadii hanti aad u fara badan baa ku jirta waxaa ku soo dhacay cilmigiisu uu tusiyey inta aadan hantidan dhicin bal waxaad fiirisaa zake inay ka bixiyeen dadkii lahaayeen dafaatirtii iyo buugaagtii iyo rasiidyadii buu fiiriyey saa 5 sanaba zake lagama bixinin intuusan xadin wuxuu go'aan ku gaaray maalkan inuu tiriyo zakadii ku waajibtay 5 sanana uu ka bixiyo kadib wixii uu dhici karo uu dhaco qalin iyo buug buu isu qaatay isagoo xisaabtii ku jira ayaa waagi ku bariyay reerkii baa ku soo kacay odaygii baa soo kacay iyo haweenaydii uu qabay haweenaydii baa waxay ku tir war nin baa halkan fadhiyo oo faynuus yar shitay oo wax xisaabinaya balkaalay arag waagi hadii uu bariyay oo aadaankii uu dhawaaqiisu yeeray wuxuu isiri horta hawshan ha ku dambaysa qabiyaha ahaatee salaada tuko weysuu bilaabay cidii iyagoo yaaban bay tartiib la hadleen markay la hadleen buu yiri ha ahalkii guriga idinka ah aalabeydkii baa tihiin kaalaya salaada naga bixiya odaygii buu hormar ku yiri odaygii waa cabsanayayo hada wuxuu isiri ninkan amu dhabarka toori ka galiyay ruqsa tahay salaada naga bixi buu ku yiri tuugii baa salaadii bixiyay markii salaadii laga soo laabtay oo salaadii laga baxay ayaa waxa la yiri uniyo waxaad sameynaysaa maxay ahaayeen markaasuu qisadii soo bilaabay in sheekhiisu la soo dardaarmay oo yiri nin kasta camalkii aabihii ha qabto dariskii oo dhan uu ka soo sikaday cidiinana uu ku soo dhacay cidiina uu ku arkay zakat 5 sano ah inaysan bixin xisaabtii zakadana uu ku jiray cidu waa yaabtay odaygii wuxuu sameeyay nin aqli badan buu ahaaye wuxuu yiri zakada dhamaystir oo xisaabta si fiican u dhamaystir inta aad doonaysay ina xado iyo gabar qurux badan oo dhalayna waan isugu ka daraya ninkii muxuu dheefay gabar iyo hanti ayuu isku darsaday zakadiina cidi waa ka bixiyay caqligaagu xataa hadduu gaabto cilmiga aad baratay wuxuu ku badbaadinayaa naftaada ayuu ku badbaadinayaa ninkii wuxuu ku guulaystay gabar qurux badan iyo hanti iyo ciddii inuu la noqdo qaraabo inuu la noqdo kii kalan hadaayay ka sheekeynayna dee siduu u hoogay waatay sidaa ahayd ee salaadihii fara badnayd uu tukanayay waxba ay u tari waayeen cilmigu marka waa muhim in la bartana waa muhim intaasi waxaan uga tagayaa dardaarankii yaraaya cabsida rabbi subxaanahu wa tacaala ku saabsanaa cabsida rabbi subxaanahu wa tacaala waxay ku hirgeli kartaa waa inaad aqoon u leedahay haddaadan aqoon u lahayn waxba ma tihid waxaad samaysayna waxba kama jiraan waxaan u soo laabanayaa mowduucaygii qabyada ahaa jimcihii hore culimmadanu ay ii soo gudbiyeen inaan dhammaystirno waxaan maraynay maraaxilul insaan qaybtii u dambaysay ee qiyaamaha ahayd waliba miisaankii iyo xisaabtii iyo waan soo dhaafnay waxay noo maraysay siraadka waxaan tilmaamnay siraadka sifaat inuu leeyahay inuu buundo yahay buundadaasina ay ku kortaalo jahannamo ay ku kortaalo naaraha korkeeda uu marayo ilaahayna subxaanahu wa tacaala markaasi ay tahay marka dhulka iyo samaawaadka uu bedelayo yowma tubaddalu alardu ghayra alardi waassamaawaat wa barazuu lilaahi alwaaxidi alqahaar maalinta ardada dhulka ah iyo samooyinka la bedelayo dadkuna ay jisrigaa sii saaran yihiin jahannamo korkeeda ay ku socdaan jahannamana ay kalaaliib leedahay qodxa ay leedahay waxyaabo qofka ku dhagayo oo jahannamo la gelaya ay leedahay axaadiistuna ay tilmaameen jisrigaas ama buundadaasi inay tahay buundo maxay ah buundo jilicsan liiqliiqata sidii tintii dumarkaoo kale ah af badan sidii seeftii oo kale ah qalqaloocan ay culimmadu tilmaameen buundadaasaa lagu soo wada yaacayaa hoosteeduna waa jahannamo horteedana waa jannadii weeye waxa ka horeeya jannadii waxaa hoostaada ahna waa jahannamo dhexdooda waxaa ahaaday buur acraaf la yidhaahdo oo asxaabul acraaf ay istaagi doonaan jisrigaas ama buundadaasi 3 qaybood ayaa loo soo gelaya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ummaddiisa ugu horeysa
nebi moxamed intuu gudbo oo jannada albaabkeeda istaago ayuu wuxuu daawanayaa ummaddiisa soo gelaysa maalinkaasi qof hadlaya ma jiro ilaa ambiyada unbaa hadlaya ambiyada hadalkooduna wuxuu ahaanayaa allaahuma sallim sallim ilaahayow badbaadi ilaahayow badbaadi nebi kasta ummaddiisu markay soo gelaysa ka ugu dambeeyay soo gelaya xataa waa arkaa ilaahayow badbaadi buu leeyahay intaasaa loo taagan yahay ambiyadu saasay u dhooban yihiin saddex qayb baa jahannamo baa buundadaas loo soo gelayaa saddexdaa qaybood laba qaybi waxay ku haraysaa buundada qayb ayaa soo gudbaysa qayb waa mu'miniin qayb waa munaafiqiin qaybna waa gaalo munaafiqiinta iyo gaalada noo harsanayd qaybta mu'miniinta waa tii aan soo sheegnay oo yowma tara almu'miniina waalmu'minaati yascaa nuuruhum bayna aydiihim wa biaymaanihim bushraakum alyowma jannaatin tajrii min taxtiha alanhaar waa tan soo niri markii ay jisrigaa soo galaan ama buundada ay soo qaadaan nebi moxamedna uu hortooda taagan yahay calayhi salaatu wassalaam ducadiisuna ay tahay allaahuma sallim sallim ilaahayow ummaddayda ii badbaadi ay xawdkii ka soo waraabeen oonkoodiina uu ba'ay gadaashoodna aysan oomaynin waa tii aan nidhi dadku iyaga naftirkooda qaybo ku soo mari doona inta wanaagsan oo kalbarqi alkhaatif qayb baa noqon doonta sidii hilaaciyo kale hal mar biriq ku soo gudbi doonta qaybi farda dheereeya siday ku gudbaan oo kale ay ku gudbi doonaan qaybi dabaylaha dheereeya oo kale ayay ku gudbi doonaan qaybi waa ruclaynayaan qaybi waa orod qaybna caadi bay u socdaan waxa ugu dambeeya ee gudbana waxay noqon doonaan wax kalaaliibtii intay xagxagteen hilbahoodu ay wada laadlaadaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala soo gudbiyo waa noocaas waxaa soo gudbaya qaybtaas jannada gashaa iyo qayb acraaf istaagi doonta marka dambe oo wanaaggoodii iyo xumaantoodii ay sinaadeen miisaankoodii markii la soo miisaamay ayaa labadii kafadood sinaadeen markaasaa siraadkii ilaahay u soo dhibyareeyoo soo gudbeen laakiin xasanaadkii iyo sayi'aadkii hadday sinaadeen jahannamana waa aadi waayeen iyo naarihii dabaqaadkeedii jannadiina waa aadi waayeen meel acraaf la yidhaahdaa lagu kuusaya qur'aanka waa tilmaamay fii suurati alacraaf ayuu ku tilmaamay markaasay iyaga naftirkooda hadli doonaanoo markii jannada iyo jahannamo ay kala aadaan labadii kale lahaa iyaguna dhexday taagan yihiin markii qaybta naareed la tuso oo lasoo dhinaceeda loo soo jeediyo ilaahayow kuwan ha nagu darin daalimiinta ah ayay odhanayaan marka xagga kale loo jeediyana waxa weeye nabadgelyo iyo barwaaqo iyo salaan ayay ku salaamayaan asxaabul acraaf waa kuwaas marka dambena ilaahay raxmaddiisa ayay jannada ku gelayaan markii meeshaas la marayo ee mu'miniintii ay qaybo ku kala mareen kala qurux badnaayeen wadamaridoodu waxaa xigi doona asxaabul acraafna buurtaas acraaf la yidhaahdo la taago munaafiqiintii aan ka soo sheekaynayna ayaan dhoweyd astaamahooda meeshana ku halaagsamaya munaafiqiinta astaamahooda waa tii aan soo tilmaamnay oo ay ka mid ahaayeen axaadiid nebi calayhi salaatu wassalaam iyo aayaad qur'aani ah markay salaada tukanayaan iyagoo wahsanaya ayay tukadaan iyagoo haamaansanaya iyagoo salaaddu ay dhibayso iyagoo dadka istustusaya haddii ay keligood yihiinna salaadda aananba tukadeen aayaddaa keligeed fii suurati الnisaa waxay tilmaamtay 3 calaamadood oo ay munaafiqiintu leeyihiin salaadda markay tukanayaan wahsi bay ku tukanayaan salaada markay tukanayaan istustus bay u tukanayaan ilaahay dartii uma tukanayaan yuraa'uuna annaas salaada markay ka baxaanna ilaahay ma xusayaan subxaanahu wa tacaala saddexdaa calaamo fii suurati الnisaa aayad ka mid ah ayaa noo tilmaamaysa nabigeennana sala allahu calayhi wasalam xadiid waxaa jira uu ku tilmaamaya calaamadahooda xadiidkaasi 4 qayboodna waa ka dhigaa 3 qayboodna waa ka dhiga idaa xadaa kadab وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان قفك منافقة markii uu sheekaynayo been ayuu ku sheekeeyaa maanta dhan wuxuu rabaa dadka inuu ka qosliyo inuu maanta dhan u sheekeeyo waxa uu u sheegayana hal shay oo ka jira mal waa been low nabigeena wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qofku waa zinaystaa mu'minka ah waana waxna waa xadaa laakiin been ma sheego beentu kabaa'irta ayay ka mid tahay
mu'minku waana zinaystaa waxna waa xadaa laakiin mu'minku been ma sheega ayuu leeyahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam markuu sheekeynaya marka been buu ku sheekeeyaa calaamatu nifaaq wey markii lala ballamana ballanta waa ka baxaa maalan waa u badannahay ilaahay ha naga najeeyo ilaahay ha naga najeeye ballan markii meel lagu wada ballamo adigoo soo daahay ama saacad dib dhacay ama 30 daqiiqo ama 15 daqiiqo wax uun soo dib dhacay cudurdaarna hadhowta la yimid baad is arkaysaa u fiirso on time qof ku imanaya waa yarya calaamadaasna munaafiqiintu waa leeyihiin oo waxay leeyihiin calaamad ah maxay soo dib dhac markii la ballamo waxay kaloo calaamada leeyihiin إذا اؤتمن خان markii la aaminana way khiyaanaan qolyahaasina way mari doonaan way soo geli doonaan bundada laakiin ma marayaan meeshay ku hari doonaan oo maxay waxay samayn doonaan inay bariyaan dadkii mu'miniinta ahaa ee iftiinkooda meesha ku maray unduruna naqtabis min nuurikum markaasay mu'miniintuna u jawaabayaan oo maalintaasi nin kasta jawaabta uu bixinaya ayuu bixinaya qiila irjicuu waraa'akum faltamisuu nuura war gadaal intaa tagtaan bal gadaal ka soo raadsada faduriba baynahum bisuurin lahu baabun baatinuhu fiihi araxma wadaahiruhu min qibalihi alcadaab waxay kaloo halkaas marka ilaahay uu ku kala teedayaa subxaanahu wa tacaala derbi buu dhex dhigayaa qaybina naxariis tahay dadka mu'miniinta xaggooda qaybina ay cadaab tahay xagga dadkii munaafiqiinta iyo gaalada ahaa halkaasaa lagu kala haraya halkaasna waxaa ku haraya munaafiqiintii iyo gaaladii ayaa halkaa ku haraya waxayna ku hoobanayaan naarta ayay ku hoobanayaan munaafiqiintu xataa cadaab ahaan markii la yidhaahdo way ka daran yihiin gaalada ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar way ugu hooseeyaan dabaqada ugu hooseeya naarta ayay ku nool yihiin waxaa soo gudbaya marka dadkii wanaagsanaa ee ahlu jannaha ahaa jannadii ayay u soo gudbayaan iyaga naftirkooda kala horeeya masaakiinta ugu horgelaysa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay dadka ugu horgelaya masaakiinta weeye waxaa ku jiri doonta dadka jannada gelaya 70,000 oo gelaysa xisaab iyo cadaab la'aan dadka masaakiinta u badan dadka fuqarada u badan dadka aanan hantida haysan maalintaasi waa liibaanayaan ninka wanaagsan ee hantiilaha ahi maalintaasi wuxuu ka dambeynayaa 500 sano ayuu ka dambeynayaa qofka miskiinka ah waayo wax la xisaabo ma leh wax la xisaabo ma leh horay ayuu ka gelayaa qofkani kan laakiin xisaab badan baa u taalo waxa la leeyahay xageed ka keentay xageedsa ku bixisay intii la weydiinayo shilin loo wareysanayo ayaa waqtigii ka dhamaanaya jannada waa imanaya laakiin 500 sano markay ku raaxaystaan ayuu imanaya isagu ahlu jannaha jannadii saasay ku galayaan ahlu naarkana naartoodii saasay ku galayaan أصحاب الأعراف dhexday istaagayaan waan soo koobaynaa waqtiga yara way iswaraysiga halka ka bilaabanaya aayadaha quraanka ayaa noo waramaya markaas waxay leeyihiin asxaabul jannaha ayaa bilaabayo ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا war annaga wuxuu ilaahay noo ballan qaaday waan helnay oo jannadii iyo naciim iyo barwaaqo iyo xuur al-ayn iyo wixii oo dhan waan helnay idinku wixii la idin ballan qaaday ma hesheen ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ree naareed baa ree jannaad la soo hadlayo iyaguna waxay leeyihiin an afiidu calayna min almaa war biyaha ilaahay idin siiyey iyo arsaaqda ilaahay idinku irsaaqay war waan gubanaynaaye nagu soo firdhiya waxay doonayaan in la qaboojiyo oo mimma razaqakum allah markaasay iyaguna u jawaabayaan ree jannaado waxay leeyihiin inna allaha xaramahuma cala alkaafiriin war waxa aad sheegaysaan ee irsaaqda ilaahayna siiyey iyo biyahaas aad sheegaysaan ilaahay waa ka xarimay ayay leeyihiin halkaasaa la isku waraysanaya maxaa naarta idin geliyey ayaa la oranaya waxaa la leeyahay maa salakakum fii saqar war saqara maxaa idinku arooriyey markaase waxay oranayaan qaaluu lam naku min almusalliin walam naku nuطcimu almiskiin وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين أنه صلاة ما أنا تكنجرن مساكين ما أنا قودين جرن ما أنا قودين جرن ضد كان حمن جرن أو وحي لدباشان دبالن جرن maalinta qiyaamo ayaan beenin jirnay ilaa tii rabbi ay noo timaado oo nala soo oofsado sidaasay ku jawaabayaan
halkaasaa marka la isku waraysanaya markaasay waxay leeyihiin asxaabu naar baa war badan oo maadaama ay gubanayaan iyagu markii waxaa lagu yiraahdo oo loo jawaabo ayay haddana waxay ku jeedsanayaan malaa'igtii khaazinu naar halkaas intay ku jeedsadaan ayay waxay leeyihiin noo barya ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu naga khafiifiyo waxaan aan ku sugannahay aamusi maayaan haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala bay baryayaan qaaluu rabbanaa galabat calayna shiqwatuna wa kunna qawman daaliin rabbanaa akhrijna minha fain cudnaa fainaa daalimuun afkaba isku dari maayaan ileen way gubanayaan maantoo dhan war un bay wadayaan ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala marka dambe uu ka yidhaahdo qaala ikhsa'uu fiiha walaa tukallimuun meeshaa ku hooga oo ha ila hadlin sidee weeye marka sidee loo cadaabaya ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa isagaa ku tilmaamaya kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan gayraha liyaduuqu alcadaab mar kastoo maqaarkooda ama muxuu ahaa iskiinkooda uu dhammaado badalnaahum juluudan gayraha liyaduuqu alcadaab ilaan wax laga dareemo xanuunka laga dareemo waa maqaarka kore maqaarkooda mar kasta uu dhammaado maqaar cusub baan u soo bedelaynaa buu ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay markaasaa sababta loo samaynayana ilaahay noogu sii daraya liyaduuqu alcadaab si ay naarta u dhadhamiyaan halkaasay ku rafaadsan yihiin halkii maree saas loogu rido waxa weeye lafahoodii baa soo daadanaya de hadhowtana baryay bilaabayaano waxaan cabnana siiya markaasaa dheecaankii iyo milankii jirkooda ka baxay oo naartii ku dhex milmaa intii loo soo dara ayaa cabba la leeyahay markay afka geliyaan baa macalmindhiciradoodii dabada ka sii baxayaan xagga kuwa kale ee jannada joogana ay barwaaqo ku jiraan asxaabu alacraaf naftirkooday la hadlayaan wa baynahumaa xijaab markii ahlu jannaha iyo ahlu naarta laga sheekeynayo wa cala alacraafi rijaalun yacrifuuna kulan bisiimaahum asxaabu alacraaf naftirkooday la hadlayaanoo waxay leeyihiin iyagaa la hadlaya markaase waxay leeyihiin intay reer jannaad fiiriyaan an salaamun calaykum lam yadkhuluuha wahum yadmacuun haddana qaybtii naareed baa loo jeedinayaa waidaa surifat absaaruhum tilqaa'a asxaabi الnaar qaaluu rabbana laa tajcalna maca alqowmi الظaalimiin ilaahayow kuwanaad hoojisee dhaalimiinta ah hanagu darin ilaahay bay baryayaan subxaanahu wa tacaala saasay marka xaaladdu ku kala sugnaanaysaa in jahannama ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku ciqaabo in jannada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu nimceeyo iyo intaa marka hore buurta intii lagu xakameeyo xoogaa la istaajiyo marka dambena ludfiga iyo naxariista rabbi subxaanahu wa tacaala ay jannadiisa ku aadaan reer jahannamaad naftirkooda meesha lagu wada dayn maayo waayo dad badan oo caasiyaal ahaa oo muslimiin ahaabaa ku jira midqaala dara min iimaan qofkii uu ku jiray marka ugu dambaysa waa laga soo saaraya ilaa marka ugu dambaysa qofka laga soo saaro jannada loo soo diro markuu jannada soo aada ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala intuu la hadlo wuxuu leeyahay ilaahayow miyaad iigu jeesjeesaysaa jannadu waaba buuxdaaya janno buuxsami mayso markaasaa waxaa la leeyahay dunida iyo toban laabkeed intay ahayd baad jannada ku leedahay gal waa xishoonaya waayo naartii baa si fiican usoo feenfeenatay qof baras qaba oo kale weeye dadka waa ka duwan yahay markaasaa meel lasoo marinayaa webi ahoo xayaat la yidhaahdo meeshaasaa lagu soo dhaqayaa jirkiisii iyo dubkiisii iyo wixii baa loo soo celinaya markaasaa jannadii lasoo aadinaya reer jannaad markaasay dabaqaad ku kala noolnool yihiin iyaga naftirkoodaan isku mid ahayn iyaga naftirkooda isku mid maaha dabaqooyin ayay ku kala noolnool yihiin jannatulfirdows ayaa ugu sarraysa jannooyin kale dabaqaadka ilaa 100 darajo ilaa 100 waxay leedahay xakabadood oo la fuulo ayay leedahay waxaana lagu kala hormaraa waxa weeye xifdi alqur'aan qur'aanka sida aad u xifdisan tahay markuu ilaahay jannada ku geeyo markaasaa waxaad leedahay wuxuu ilaahay ku leeyahay subxaanahu wa tacaala akhri qur'aanka tartiibi inta aad taqaano akhri markaasaa jaranjarada lagu saaraya qof kasta inta uu xifdisan yahay qur'aanka jaranjaradiisa meeshay u tagta ayuu u tagaya waxaa halkaas ku guulaysanaya dadkii xufaadda ahaa macallimiinta ahaa wanaagsanaayee ilaahay jannada geliyey haddana la yidhi fuula oo si fiican u akhriya oo kala dhigdhiga
dadkii noocaas la yidhi iyagoo qur'aanka ku raaxaysanaya ayay darajaadka ugu sarreeya gaarayaan. jannada keligeeda ayaa mowduuc u baahan iyo barwaaqadeeda iyo naciimteeda. naarta keliya ayaa feenashadeeda iyo wahum fiiha kaalixuun iyo mowduuceedu gooni yahay. asxaabul acraaf keligeed baan laga dhammaan karin. waan soo khulaasaynaynaa. aquulu qowlii hada wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu.